wararka ka imaanaya tuulo u dhaxaysa magaalooyinka Cadale iyo Raagacele ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in halkaasi dil wadareed lagu geystay shan macallin dugsi Qur'aan kuwaas oo waqtiga la dilay ahaa kuwa ku jira aqrinta Qur'aanka gaar ahaan waxa la sheegay inay subcinayeen sidoo kale wararka Shabeelle ay ka helayso degmada Cadale ayaa sheegaya in dhaawac la gaarsiiyay laba kamid ah macallimiintii halkaasi lagu weeraray ila wareed lagu kalsoonaan karo ayaa Shabeelle la wadaaga magacyada macallimiinta la dilay waxaana ay kala hayeen الله أن حريستي الشيخ داهر حسن علي معلم محمود عنبور معلم محمد حسين أحمد معلم مختار عبد الله علمي إياه أو محمود حسن علي دad kala dilay ayaa waxa kamid ah sida wararku sheegayaan laba macallin oo walaalaha oo lagu kala magacaabi jiray Allah u wada naxariistay Sheikh Daahir Xasan Ali iyo Maxamuud Xasan Ali gudoomiyaha maamulka degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe Muuse Macallin oo goor dhow la hadlay Shabeelle TV ayaa si kooban faahfaahin uga bixiyay siday maanta wax u dhaceen wallahi ma qalan horta joogna anaga waxaan ugu wargeliyay in goob dad ku duuleen dad Qur'aan akhriya ay ka dileen dad shan qof ay goobta ku dhimatay laba dhaawac waxba ka sii dhintaan leeyahay soona Cadale Raagacele dhexdaasoo laga Raagacele ku jirtaan maqlaynaa dhaawaca jira dhimasha jira aniga waxaan maqlay in laba qof ay dhaawac tahay shan ay dhimatay kadib dhaawac waxba ka dhinteen dad leeyihiin illa adeegsada suuragal laakiin waxa isdilay shacabka laba beelood ma aan u malaynaa waa gartay marka hadda maxaa dadaalo soo inta ogtahay wallahi degmooyinkan waa dhowr degmo ma garat waa gartay dawladda la xiriiray dawladda wacnay dawladda dhaxan wacnay waxaan sugaynaa bal sida loo barigareelay degmada kalena aanu helnaa waa gartay marka mudooyinkanba wax aanooyin qabiil la xiriiro oo deegaanka lagu saleyn kara dhacday ana qabiil soo jirtay waa gartay laakiin nasashay ku jirta muddo xoogaa hadda xagee la geeyay meedadkii oo dhibkaasi gaaray meeshu way naga fogtaa aad iyo faham naga fogtaa Raagacele xiriirka ka sameeya Raagacele ka sameeya xiriirka gudoomiyaha degmada Cadale Muuse Maxamed oo si hadlaya ayaa sidoo kale sheegay in arintan ay u badan tahay inay tahay aana qabiil isla mar ahaantaasina haatan ay wadaan baaritaan dhacdaasi la xiriira deegaanka waxa meelaan sidaas u fogeen ku sugan dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo tuulooyin hoostaga Cadale iyo deegaanka Raagacele gacanta ku haya mararka qaarna weerar ka fuliya wali ma jirto cid loo soo qabtay falkan naxdinta leh hase yeeshee maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada Cadale iyo midka deegaanka Raagacele dhamaantood waxay sheegayaan inay wadaan baaritaano iyo dadaalo arintaasi lagu xalinayo